السلام عليكم صاحبada qiimaha badan oo islaamay meel ka soo joogtaan waxaan leeyahay kulanti wacan wanaagsan isu soo noqdo wanaagsan halka ay daawanaysan waa kuma official magacaygu waa Dikaadir Akma mar kale iyo muuqaal kale muuqaalkan wuxuu la xiriiraa barnaamijyada hore oo hadda jiro ahaa taxanaha teknoolajiyada haddii aan hore u soo hadalnay Facebook sida shaashadiisa madow looga dhigo ama dark mode markan waxaan ka hadlaynaa sida WhatsApp-ka dark mode looga dhigo haddii uu markaa cadaan sidaan ku ahaa inay ka dhigatid madow sidaan barajeenaya muuqaalku halka uu socdo iyo ujeedada inaad fahantay balse intaan u guda galay muuqaalka faahfaahsan ku soo dhawow barahana bulshada oo ka mid noqon saaxiibada hadii jeerna la jooga haddii WhatsApp-ka shaashadiisa cadaan ay tahay sida ugu dhigtay dark mode imow saddexda dhibcood kadibna taabo setting halkan shaashadan cadaan san ku tahay waxa tagi doontaa chatiska ayaa tagi doontaa chatiska marka tagtid waxa tagi doontaa kadibna same ay tagi doontaa hada light baa noo saaran waxaan dooraynaa dark baan dooraynaa darkas markaan doorano tan setting default-ga shaashada hadii madow marka hore ku ahaa setting default-ga shaashada ayuu quseeyaa kaas laakiin labadan mid ka dhigan kartaa aduu light ku ahaa dark saas oo dhigan kartaa kadibna okay ayaa leedahay oo ujeedaa shaashadii sida isku bedeshay madow marka horena waxay ahayd cadaan sidaas fudud ayaa ku bedeli doontaa shaashada WhatsApp-kaaga waan rajeynayaa muuqaalkan wuxuuna ka faa'iideysatay waxaan jeclaan lahaa inaad la soo wadaagtid saaxiibada la jeclaan lahayd inay ka faa'iideystaan ayaguna ilaa in ka gaarina muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan ku leeyahay nabadgelyo